maalqabeenka Mareykanka ah ee asalkiisu South African ka yahay Elon Musk ayaa mar kale hoggaanka u qabtay hantilayaasha dunideena ee bilyaamaadka haysta kadib markii uu mustawahan ka xoogay bilyaneerka Faranjiga ah ee la yiraahdo Bernard Arnault. Elon oo shabakada Forbes sheegtay in hantidiisu gaartay 400 bilyan oo dollar waxa uu noqday qofkii ugu horeeyay ee maguurtadiisu inta la og yahay heerkan gaartay sida ay Bloomberg warisay. waxaana sidoo kale ay qiyaaseen inuu sanadka 2027 noqon karo trilyoneerka ugu horeeya taariikhda casriga ah ee aadanaha. kor u kac bilaayin dollar ah oo ay samaysay shirkadiisa dayax gacmeedka ee SpaceX ayuu mustawaha maalqabeenka koowaad ee dunideena mar kale ku kasbaday Elon. maalgashadayaasha SpaceX oo iibsaday sheerar gaaraya 1.25 bilyan oo dollar bilowgii December ayaa sidoo kale kaalmaysay in ninkan hantidiisu kor ugu kacdo xawligan aan la filayn, taasoo ka saaciday inuu masaafo ka hormaro maalqabeenka ku jira kaalinta labaad oo ah aasaasaha Amazon Jeff Bezos oo isagu haysta 227 bilyan oo dollar. maalqabeenkii sanadkan 2024 hogaaminayay liiskan ee Bernard Arnault waxa uu u dhacay kaalinta shanaad halka uu kaalinta saddexaad soo galay mulkiilaha shirkadda Meta Mark Zuckerberg. Elon Musk waxa uu sidoo kale safka hore uga jiraa dadka loo badinayo inay ka soo dhex muuqan doonaan xukuumadda cusub ee madaxweynaha dooran ee Mareykanka Donald Trump. ogow Elon inuu halka ugu sareyso ka galo liiska maalqabeenada dunideena waxa iyana door sare ku lahayd kaalintiisii ololaha doorashada Trump oo uu guushiisa ku macaashay lacag gaartay 70 bilyan oo dollar sida xogtu warisay. Mansa Musi Ghana ayaa taariikhda oran jirtay waxa uu ahaa qofkii ugu horeeyay tagtada aadanaha ee hantidiisu gaartay 400 bilyan oo dollar. waxaase hadda mustawahaas la wareegay Elon oo isaguna Afrika ka yimid.